jaamac dhagan kula hadlaya video jaamac dhago ma waxaad video u soo duubto shalay adeecada isku soo hortaagtay dadku yaqaanin mise inta Djibouti ku baratay ee 40 sano cadaalad darrada ku xukumaysay Ismaaciil maalinta la qabto adigana ada Ismaaciil xukumi doono taasan ku sheegaya Ismaaciil qofka ugu dambeysay xukunti Ismaaciil buu noqon doonaa ya cadaalad darradii aad ku xukumaysay wadanka ya ayaa iyo sagna ku jiri doona wad xukumi doontaa kadibna adaa lagu sii xukumi doonaa ogsoonow taas 30 sano ayaa shacabka u xukuntaa Ismaaciil been iyo politik Ismaaciil difaac buu afar booreel ku oran jiray oo difaaci jirtay laakiin shacabkana igu dar ka ogolaan mayna day beenta aad Fuad Yuusuf ka sameynaysid ya beenta inta lacagad ka diyaarisay maxaad u soo sheegi weyday talabaad Fuad ma TV-ga laga xukumaa waaba xukunkii baad ka sii hor dhacday waa maxay sharciga qaanuunka ma ogolo inuu TV soo fariisto waxa soo sameeyay maxkamadda tooska maalinta la taagayaha ma ilaaqad la Eritrea sidoo ku tagay ama maba ismaba afahmayaan beenta aad sheegaysid fiiri war ilaahay umadaha inaga qabto cadaalad darradaada shalay bad cadeysatay awal jilxad bad ku eedaami jirtay laakiin shalay bad xukunkaagii aad ka sii hor dhacday iyo beenta ninkan xaq buu u leeyahay lawyer wuxuu xaq u leeyahay nolol inuu ku dhaxlo xabsiga inta aad cadaalad darradii la sugaysay Yurub iyo Mareykan dad iyo koolay 20 ayaa walibana intiyo tartiib loo qabto xabsi la geeyaa wax seelul duus la dhada adduunka kama jirto oo xaar ku dhex yaalo waana cadaaladoodii ku sugan waajibkoogana laga maraa lawyer bay xaq u leeyihiin xukun bay xaq u leeyihiin waxaad keentay maanta inaad tirahdid Fuad Eritrea u ordaayay diyaaradaha aad sheegaysiin waaba u diiday sanad muuba kicine naftiisu la cararay kadibna waad iibsateen Fuad waxaan leeyahay cadaalad darrada aad ku dhaqmaysiin insha Allah Ilaahay bay inaga soo saaray inagana sida aan baan ilay qabani ha ismoodina maanta inaad daarta ugu sareyso ku joogtiin oo barini la soo gaarin waxaan la hadlayaa mar labaad askarta reer Djibouti walaalaha hadilin almaadirada hadilin hooyada hadilin aabaha hadilin Sakariye jaamac Maxamed jaamac ninka la yiraahdo Cabdullaahi Cabdi si yaroo fudud inoogu qabta wadanku mudaharaadka mar soo harayo fara badan saacadna ha naga ridin waxa yaga sidii Zimbabwe janda militaarka ilmaadeeradiisa ma haysani dadka la haysta laakiin kan inaadeerkiisa haysta isaga waa kaligiisa Sakariye waa oday 70 jir ah wiil yaro 20 jir oo jeebeeya katiinad ku qabta maal la waay Sakariye maal la waay Maxamed jaamac Ducaali wax katiinad ku qabta maal la waay Cabdullaahi Cabdi wax katiinad ku qabta kadibna si yaro fudud odaga geelle kursiga uga dajiye wadanku war mudaharaad iyo inii diiday sharci ma siinayaan adduunka arkay hadayni laayaan meesha waxa degan Mareykan Faransiis baa degan Shiina degan Mareykanka iyo Shiinaha Mareykanka liiqaati Shiinuhu waa dictatori wadankan uu sugayaa inuu gacanta ku dhigo wuxuu leeyahay daabkiina nagu dul gurtaa laakiin Mareykanku iyo Faransiisku ma ogolo inaad markaad xaqiina doonanaysan in laayo Ismaaciil wuxuu diidan yahay maanta mudaharaadadan iyo waxaan oo dhan uga soo horjeedo godkiisa biyo uga soo galeen
عمود إن بريس كيس لقى عمود يودي ديه وحودي ديه إن أدون كلو عباي وضع كانوا حاجوج ذا جوجة جبان باجوجة جرمال كاجوجة طلياني كاجوجة وحا صدم توصى هذا عبد الله جمس صار فيسبوك هذا كوسا قرة حلا ور مصر فيسبوك على جريد حسن مبارك بلنتي كيس قبسنيين إني جنا سدع سنة اللي جربها معنا وإني جحد دونا خطك لكن محمد بدهليسي مدة قبيليسي وحن يقع السنة شعب كريتيفيتي oo isku duuban oo qabiilkii waxaan iska dhaafay in ay xaqooga simida u wada raadsadaan ma ogolin in la iskala saaro walaalaatihiin kursigan markuu casharka ku baranay wiil Soomaaliya kursigan afar baa ku baranay wiil kursigan Arab baa jooga kursigan Eritrean baa jooga kursigan Suudaan baa jooga Senegal baa Djibouti wax ka baranay macallimiinta qaar Senegalay haye mad walantihiin جوجي قبيلة ليميت بيلاده هاي وإن ذلك هبل يكايني كاني نيدتشي لكن هكذا بقادرين إنكو جيبوسيان باتين واتكوينتين وحاس واتكفاليغ وينتين جوجيا حقينا السم من نماء إن كيتينو بيدها نعفرتو من نماء الراسدة يونيتي وفولونتي وإناد هايسين وإناد فولونتي هايسين وإناد ساك سوك عضي وإناد ضد نهار صعودان قوان له تإكس برخدقات ضد قوان له تإكس وليبنا تإكس باوس كاغا وحا لغا ربا إنا آد بوحيسي دان يرتا موف موغن راد لدهايو وإني بارتيك راد لدها وإني صاغشا وإني لا مظاهرة ورماشان دد با كاديدودو سوع بديغوغا maanta hadaad ka ridi weydin xukunka Faransiiska daalimka uu niga tagay dictatorka dad ka ridi weydin berit hole ko tababara kuugu dul iman saas sana lagu waday 100 sano maanta ku dhowda yaa lagu joojini ya dhimasho waa ku xukuman tahay dhimasho waxaan leeyahay Ismaaciilo diyaaradii aad ku carari lahayd soo dhaweyso hadaad imika ka bixi weydo wadanka aan basifooda ku dhiibi weydo maxkamad baa ku dambayn jaamac ali geeli maxkamad baa ku dambayn Sakariya maxkamad baa ku dambayn kulligiina maxkamad baa inii dambayn Ilyas Muuse Dawaal maxkamad baa ku dambayn ha isdiin maanta waxa ma sameyn waad ku jirtaa dadka gaajada ku xukumay waa lagu la xisaabtami aabaha jaadlo ahaa goorma lacagta inta lacag yeelatay يا صليدا مركب قياسيس أداب كشيكيه هكيل عكتان كيالت قارما بدارتو سنان كودلاش بدارت هذه وجهها اسكو اكال انا قاعد نصيحريس انا قاعد نواليسا ريتشوتي وي اقليستان وي كديفلوبين بنتينا هير مانتا waxay gaareen inaad marka aad ka soo baxdin cid bani fiirin qiimihiini ba hoos u dhacay war ani maanta hadaan hallo wal dhageysan Ismaaciil Abdu hal cid dhageysanaysa male marka ma heerkaas aad gaadheeni xukunkaasi wadaysiin muxuu yahay heer waxaad gaadheen nil dhageysan way qiimaba kuma lidina bulshada iya sabab ya sideed ku xukumi mas'uuliyiinta waa la dhageystaa adduunka waa la sugaa hadalkooda laakiin iniga نيل باتي زيرو يا كبح ماش كدق هديك لا قبل ماينو إند جبير سن ماينو والله أنا عندها ساسل بليونا ساسل يا وين السلام يا فيديو يقول هذا نيجا ما هرايو وين لصعنا يا وولاش شغلنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.